Khabiir Sacuudi ayaa sheegay in qiyaasta cilmi-faliga ay muujinayso in Ciidul Fidriga soonka ay ku beegan tahay maalinta Jimcaha. Injineer Maajid Abu Sahra, oo ah madaxa ururka khubarada cilmi-faliga ee xaruntiisu ay tahay Jidda, ayaa sheegay in qiyaastooda bisha Shawaal curan doonto galabnimada Khamiista ee 20-ka Abriil. Haddii sidaas ay noqoto, waxay ka dhigan tahay in soonka uu ku dhammaan doono 29 maalmood. Khabiirka ugu horeeya wakaaladda wararka Sacuudiga ee SBA ayaa sheegay in inkastoo qiyaasta aan caddayn, haddana ay adkaan doonto in dayaxa la arko galabnimada Khamiista. Waxa uu intaasi raaciyay in si loo xaqiijiyo curashada bisha Shawaal loo baahan yahay kaamirada awoodda badan ee loo yaqaan CCD. Sidoo kale, dayaxa ayaa 24 daqiiqo kadib gabaldhaca isna dhici doona sida uu sheegay khabiirka, taasi oo yareyn doonta waqtiga lagu arki karo dayaxa. Golaha sare ee Sacuudi Carabiya ayaa ugu baaqay muslimiinta ku nool boqortooyada in ay dayaxa baadigoobaan galabnimada Khamiista. Xarunta Caalamiga ee Cilmi-faliga ee Dubai ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay in dayaxa aan Khamiista laga arki doonin inta badan dunida Islaamka, marka laga reebo galbeedka Afrika oo ay suurtagal tahay in la arko haddii la adeegsado qalab casri ah. Inkastoo khubarada cilmi-faliga qiyaastooda sheegeen, haddana waxaa suurtagal ah in la arko dad badan oo indhaha saaray dayaxa oo daarin kadib sidaas lagu ciido. Waxaa sanado badan dhacday in saadaasha cilmi-faliga ay wax badan iska beddeleen oo dayaxa la arkay xilli aan la filaynin. Khubarada ayaa sidoo kale saadaaliyay in dalal ka mid ah Australia iyo Indonesia maalmaha soo socda laga arki doono dayax madoobaad. Bisha Shacbaan ayaa ku dhamaatay 30 maalmood.